BBC London oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee 19 koob iyo 30 iyo 49 mitirban hirarka FMK magaalooyinka Muqdisho Hargeysa Boosaaso Garowe Qarno iyo Djibouti caalamka oo dhan waxa idin nagala socon kartaan qalabka internetka ciwaankayaguna yahay bbcsomali.com kulanti wanaagsan dhagaystayaal meel walba aad joogtaan saacadu waa 9 fiidnimo maanta waa Jimce bishura waxa weeyaan bisha May 3 sanadka 2002 barnaamijkayaga caawa waxa uu u badnaan doonaa warar ku saabsan geerida madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal asayashe marka hore waxa idin ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Cabdiraxmaan Koronto mahadsanid Axmed Saciid Cigaal madaxweynaha jamhuuriyadda la magac baxday Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa waxa uu ku geeriyooday wadanka Koonfur Afrika waxa uu halkaasi u tagay toddobaadkii hore howlo caafimaad kadib markii uu xanuunsanayay muddo 3 bilood ah waxaana socdaalka uu ku tagay Koonfur Afrika ku weheliyay xaaskiisa iyo wasiirro sare oo ka tirsanaa dawladda Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii 1993 iyadoo uu halka ka hirgeliyay xasilooni aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale inkastoo uu ku guuleysan waayay inuu helo aqoonsi caalami ah labada hogaamiye ee ugu muhiimsanaa dagaalkii Kosovo ayaa si ka fool isugu soo hor fariistay maxkamadda dambiyada dagaalka ee Hague hogaamiyihii hore ee Yugoslavia Slobodan Milosevic ayaa su'aalo weydiiyay madaxweynihii Kosovo Ibrahim Rugova kaasoo ku marqaati furayay dambiyadii dagaalka ee Milosevic uu geystay wariyaha BBC-da uga soo warramay maxkamadda dambiyada dagaalka ee Hague ayaa sheegay in hadallada ay isweydaarsadeen ay ahaayeen kuwa xamaasad leh isla markaana cadaawad ay ka muuqatay Mr. Rugova waxa uu ku eedeeyay Yugoslavia inay isku dayeysay inay dagaal ku baabi'iso Kosovo laakiin madaxweynihii hore ee Yugoslavia waa uu diiday eedayntaasi loo soo jeediyay xubin kamida guddigii la kala diray ee qaramada midoobay ee la doonayay in ay baaraan wixii ka dhacay xerada qaxootiga Janiin markii Israa'iiliyiintu ay weerareen ayaa ku baaqay in xerada qaxootiga Falastiiniyiinta la geeyo ciidamo nabad ilaalin joogto ah oo caalami ah si ay u difaacaan dadka rayidka ah Cornelio Samaruga oo horay madax uga ahaan jiray laanqayrtaas ayaa sheegay in ay arintani tahay mid kamida tallaabooyin ay soo jeediyeen guddi ka kooban 3 qof markii laga sugayay in Israa'iil ay ogolaato in guddigu uu xiriyahaasi booqdo Mr. Samaruga ayaa sheegay inuu aad uga niyad xun yahay in barnaamijkaasi la baajiyay sababtoo ah waxa barnaamijkaasi uu gacan weyn ka geysan lahaa si xiisada lagu yareeyo hase yeeshee waxa uu sheegay wararka la qarinayo in aysan sii socon doonin muddo dheer iyadoo xaqiiqada ka jirta Janiin ay horeyba u bilaabatay in ay soo baxdo 4 nin oo dhaawac ayaa laga soo saaray kaniisadda ku taala halka oo la rumaysan yahay inuu ku dhashay Nabi Ciise calayhi salaam ee magaalada Baytulaxam iyadoo ay soo baxayaan warar ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku xayiran gudaha wariye ka tirsan BBC-da oo jooga daanta galbeed ayaa sheegay in 4 qof ee dhaawaca ay rumaysan yahay in ay ka tirsanaayeen ciidamada booliska Falastiiniyiinta hase yeeshee kama aanay mid ahayn dadka ku jira liiska ay Israa'iiliyiintu doonayaan mahadsanid Cabdiraxmaan intaasi waxa ku dhan warkii dunida halka idin kala socotaana waa laantii af Soomaaliga ee BBC London dhagaystayaal sidii warkaba idinku maqlaseen waxa maanta ku geeriyooday magaalada Pretoria ee dalka Koonfurta Afrika madaxweynihii Soomaaliland Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo halkaasi muddo 7 daaweyn u joogay barnaamij gaar ah oo laanta af Soomaaliga BBC-da ugu tala gashay ayaa halkan idinku hayna waxaan inoo daadiin doonaa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Cabdiraxmaan Koronto ku wareejiyo الله نحرسته محمد حاج إبراهيم عقال مدحونيه جمهورية دلما بحذي سوماليلاند ساكي طبانكي صباحنما وقتك بريتوريا كونفور أفريكا أيو كوغيريو ذا إسبيتال ميلتري أوكيا لمقالة داسي waxaa halkaasi u tagay toddobaadkii hore howlo caafimaad kadib markii uu xanuunsanayay muddo 3 bilood ah waxaana socdaalka uu ku tagay Koonfur Afrika ku wehelinayay xaaskiisa iyo wasiirro sare oo ka tirsanaa dawladda Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii 1993 iyadoo uu halka ka hirgeliyay xasilooni aan jirin Soomaaliya inteeda kale inkastoo uu ku guuleysan waayay inuu helo aqoonsi caalami ah
haddaba sidee geerida allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal looga dareemay magaalada hargeysa oo ah caasimada somalilan? yuusuf garaad ayaa wax ka weydiiyey wariyaha b b c da hargeysa shaadiye maxamed rooble. dadka maanta jimcay ahayd badanaa jimcaha dadku hawsha way ka nastaan, hore looma ogaanin. dadkii ugu horeeyay ee aan dareemay inay maqlaan waxay ahayd 3 iyo waxoogaa. marka dadku runtii in badan baan ilaa hadda maqashiisneen. qof walba wuxuu ku weydiinayaa ma runbaa ma jirtaa, waayo dadka marka hore xanuunkiisa iyagoo maqashiisnaa haddana waraysigii b b c da ay yeelatay habeenkii dhowr codkiisa ay maqleen waxay siisay dareen ah inuu caafimaadku uu fiican yahay soo laaban doono. marka dadku in badan ayay isweydiinayeen. dadna hadda waxaan ku dhihi karaa Yuusuf, dad badan baan hadda maqalkaas ka hor hadda b b c da aan ogaanin oo aad baa la isku weydiinayay maadaama ay jimcaha ahayd. had iyo jeerna 3 iyo agagaarkeeda waa xilliga jaadka loo fadhiyo oo beledka markaad dhex socoto dad badan iyo waxaas ma arkaysid. laakiin abaar 4 waxoogaa ayaa fayeenka madaxtooyada cabdi idris ducaale war-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ayaa soo baxay oo sheegaya in madaxweyne ku-xigeenka daahir yaala kaahin uu caddeeyey in madaxweyne cigaal uu geeriyooday qaliin lagu sameeyey isbitaalkii military ee Pretoria ee uu ku jiray. marka dad badan baa intii kadib ogaaday. runtii waana la dareensan yahay. ilaa burco oo la xiriiray weliye ku sugan waxa uu sheegay in markaas uun la ogaaday waxoogaa ka hor. waan gartay shaadiyo markii la ogaaday dadka jawigoodu sidee yahay, dadka dareenkeedu maxay muujinayaan? wallahi dadka dareenkoodu horta waa kala duwan yahay, laakiin waxaad ka arkaysaa xaafadaha qaar dad hortaagan. haweenka oo kale waxaad moodaa in ay xoogaa welwelsan yihiin oo ay jawiyo sida waxay dhici doonaan ay ka welwelsan yihiin oo guryaha ay hortaagan yihiin. madaxtooyada aan soo hormaray haween baa hortaagnaa. meelaha la isugu yimaada hargeysa caanka cajab oo kale oo aan tegay rag tiro badan oo waayeelu badan isku dhex jiraan la kulmay. qaarkood waxay ii sheegeen inay habeeraatay wax weera ay qabaan ay jirin dastuur uu wadanku leeyahay oo ay markaas wixii dastuurku uu sameeyay markaas lagu dhaqaaqi doono warwar badan la qabin. laakiin dadka walwalsan xoogaa xaafadaha iyo haweenka iyo aad looga dareemay inay aad u walwalsan yihiin. waxaa kaloo jira Yuusuf shir loo fadhiyo madaxtooyada oo 3 gole ay ku kulansan yihiin shirgudoonada khaasatan oo cabdi idris uu ii sheegay mar aan isaragno la hadlay in shirkaas wax ay ka soo bixi doonaan markaas lagu dhaqaaqi doono. haatanna wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada hargeysa waa kan yuusuf garaad oo inoo soo kooba. waxa weeye shirka wariyuhu ay sheegaysay shaadiya ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray go'aamo dhowr ah oo ugu horeeyo in daahir rayaale kaahin loo dhaariyo madaxweynenimo. isla markiibana halka ayaa lagu dhaariyey oo waxaa madaxweynaha somalilan loo dhaariyey daahir rayaale kaahin. waxaa kale oo go'aan lagu soo saaray in guddi 10 ruux ka kooban loo saaro aaska madaxweynaha geeriyooday. waxaana guddigaasi madax u ah wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi cadde, iyadoo isla markaana la sheegay in lagu aasi doono magaalada berbera sidii uu marxuumkuba markii hore codsaday oo ahayd in uu ka dardaarmay in lagu garab aaso qabriga aabihii. arrimaha kale ee wararkan soo gaaray hadda waxaa ka mid ah in dowladda koonfur afrika ay hadal ka soo saartay geerida maxamed ibraahim cigaal, iyadoo sheegtay in ay ka naxday geeridaas isla markaana ay uga tacsiyadeynayso mas-uuliyiinta iyo shacabka somalilan. waxaa kale oo wararku ay sheegayaan in ay nagu soo dhacayaan faakisyo fara badan oo ay soo dirayaan dadweyne soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin intaba oo ay ugu tacsiyadeynayaan eheladii iyo qaraabadii maxamed xaaji ibraahim cigaal. markana warbixin kooban oo ku saabsan taariikh nololeedka madaxweynaha cusub ee somalilan daahir rayaale kaahin. wariyaha b b c da hargeysa xuseen cali nuur ayaa fax nooga soo diray magaalada hargeysa. maxamed cadde ayaa noo soo koobaya. daahir rayaale kaahin waxa uu ku dhashay magaalada boorama sanadku markuu ahaa 1952. waxa uu ka baxay dugsiga sare ee camuud sanadku markuu ahaa 1974. waxa uu ka soo shaqeeyey nabad sugidda iyo diblomaasiyadda oo uu ka gaaray xogayaha koowaad ee safaaradii Soomaalida ee Djibouti. 1991 waxa uu ka qayb galay shirkii Burco ee lagu go'aamiyey gooni isu taagga Somaliland. 1991 ilaa 1992 waxa uu gudoomiye ka ahaa gobolka Awdal. 1997 ayaana loo doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. madaxweynaha somalilan allaha u naxariistay waxa uu ahaa siyaasi rugacda ah oo qayb weyn ka soo qaatay siyaasadda guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Somalilan. axmed saciid ciga ayaa inoo haya taariikh nololeedkiisa. الله ونحريسته محمد حاجي إبراهيم عقال وحقو كل شيء سنة كي كون يسقال بقول يسقال إلى لبعتن كي دقمة أود وين قبل كتقدر
yaraantiisii waxa uu ku barbaaray magaalooyinka Burco, Berbera iyo Sheekh oo uu ku dhamaystay waxbarashadiisii malcaamadal Qur'aanka ilaa iyo dugsiga Sheekh ee caanka ah. waxbarasho sare ayuu waxa uu u tagay oo la xidhiidha dhinaca ganacsiga magaalada London ee wadanka Ingiriiska. waxaanu dalka dib ugu soo laabtay horaantii sanadihii kontameeyadii oo xilligaasi ay aloosnay dabayshii xornimadoonka ee xisbigii SNL. sanadkii 1956 Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxaa loo doortay in uu noqdo xogayihii guud ee xisbigii SNL ee u halgamayay xornimadii Somaliland. bishii February sanadkii 1960 Allah u naxariistay Maxamed Ibraahim Cigaal waxa uu gacantiisa uu ku soo saxeexay in Somaliland ay xornimadeeda ka qaadato dawladda Ingiriiska taariikhdu marka ay tahay 26 Juun ee sanadka 60. markaasi waxa Cigaal ku heliyay heshiiskaasi rag ay kamid ahaayeen Cali Garaad Jaamac, Xaaji Ibraahim Nuur, Axmed Kayse Ducaale iyo Maxamuud Cabdi Caraale. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariistay waxa uu noqday hogaamiyihii u horeeyay ee Somaliland kadib markii ay xornimadeeda gaadhay 26 Juun sanadkii 1960. kowdii July 1960 markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay iyana xornimadoodii ka qaateen dawladii Talyaaniga ee ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo hogaaminayay wafdigii ka socday Somaliland waxa uu noqday wasiirkii gaashaandhigga ugu horeeyay ee Soomaaliya. Allah u naxariistay Cigaal waxa uu kaloo noqday wasiirkii tacliinta ee Soomaaliya sanadkii 1963 ilaa 1964. hase yeeshee waa uu iska casilay golihii wasiirada ee xilligaasi markiiba isagoo hogaamiye ka noqday xisbi mucaarid ah oo la oran jiray SNC. markii dambena wuxuu ku biiray Cigaal xisbigii SYL. 10 July 1967 waxa uu Cigaal uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharma arkay loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal mar kale ayaa waxaa loo doortay jagadaasi ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya doorashooyinkii 1969. 21 Oktoobar 1969 markii inqilaabkii military ee uu hogaaminayay Generaal Maxamed Siyaad Barre uu ka dhacay Soomaaliya ee taladii ciidamadu ay la wareegeen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee dawlad Soomaaliyeed ee la doorto ee la inqilaabo dawladiisa. waqtigaasi waa la xidhay. waxa uu Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal xabsiga uu ku jiray ilaa 1981 bishii February. marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd 1975 ilaa 76 oo mar loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya New Delhi ee dalka Hindiya. kadibna isla markiiba xabsiga ayaa lagu celiyay inta loo yeeray. 1985 waxaa jirtay mar loo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal gudoomiyaha rugta ganacsiga laakiin kuma raagin jagadaasi ee uu iska casilay markiiba. burburkii dawladii Soomaaliya kadib Cigaal waxa uu ka qayb galay sanadkii 1991 shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee Djibouti. 1993 bishii May 5 Cigaal waxa loogu doortay magaalada Boorama madaxweynaha Somaliland iyadoo jagadaasi haddana dib loogu doortay sanadkii 1997 shirweynihii beelaha ee Somaliland. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu toddobaadkii hore daaweyn u tagay dalka Koonfurta Afrika iyadoo ay weheliso marwadiisa Kaltuum Xaaji Daahir iyo xubno ka tirsanaa golaha wasiirada ee Somaliland. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo aabihii Xaaji Ibraahim Cigaal uu dhalay kaligii waxa uu Allah u naxariistay uu guursaday intii uu noolaa 5 dumar ah wuxuuna u dhalay 5 caruur ah oo kala ahaa 3 wiil iyo 2 gabdhood oo intuba ay u dhashay Marwa Caasha Saciid Caabi. bishii February ee 1960 waxaa magaalada London uu Cigaal ku saxiixay heshiis dhigayay in 26 Juun 1960 ay Somaliland xornimadeeda ka qaadato Ingiriiska. markii loo ballan qaaday madax banaanida hadaladii uu Cigaal munaasabadaasi ka jeediyay waxa kamid ahaa maalintii Arbacadii gelinkii dambe shalayto ayaa noo yimi Colonel Secretary magaalada dawladana khudbadan kala sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxa weeye guntiisii bisha kowdeeda July kowdeeda inaynu dawladda haano si aynu walaalada Soomaaliya is raaci karro ayuu guntiis noqday. sidaas ayuu arrinkii ku go'ay. waxa ku jirtay statementka arrimo dhowr ah oo dambe ayaa iyana hadal ku hadhay oo hadii kuwaas laga heshiiyo dawladnimadii waxa kama qabno ayaa la yidhi. Allah u naxariistay kaasi waxa uu codkii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
cigaal oo waqti dheer ku soo jiray arrimaha siyaasadda ayaa siyaasiyiinta ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa cabdirasaaq xaaji xuseen. cabdirasaaq oo hadda jooga magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa Yuusuf Garaad uu telefoonka kula xiriiray waxaana marka hore uu weydiiyey goorma ayay isbarteen. cigaal horta intaan goorta isbarada sheega waxaan jeclaan lahaa haddaad ii ogolaatid inaan ka hormariyo inaan aad iyo aad uga xumahay geerida maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaana waxaan uga baryahayaa in ilaahay u naxariisto eheladii uu ka dhashay eheladiisii wuxuu dhalay iyo wixii qaraabaha oo kale uu la dhashay iyo ciddii xaasaskiisii waxaan iyagana u soo gudbinayaa tacsi xoog leh ilaahna waxaan ka baryahayaa in isagana alla u naxariisto ayagana sabir iyo kulligeen oo dhan sabir ilaahayna ka siiyo. intaas ka bacdi waxaan u soo noqonayaa su-aashaadii maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistay waxaan isbarannay isbarasho runa waxaa u horreysay waqtigii lixdameeyihii xorriyada la qaatay oo laysku soo darsamay labada aqliimo midna ingiriisku haysan jiray midna talyaanigu haysan jiray lixdankii. markaas cigaal maxaad shakhsiyadiisa ku tilmaami lahayd? cigaal shakhsiyadiisa waxaan ku tilmaami lahaa nin oday oo hormooda oo sidiiba dadweynihii madaxda u ahaa u arkahayay ayuu ahaa. madaxdii markaas la haystay heerka sare kaga jiray dhinaca aqoonta iyo xilkarnimada iyo muuqaalka iyo haybadda ayuu igu muuqanayoon ku arkahaya. xagga siyaasadana xagga siyaasadda haddee qof walba ogtahay siyaasadda sinamuun u arkaya. guud ahaantaas waxaan islahaa anugu waan arkayay dadkii un madaxda soomaalida ah waa un la iska dhalataxyeynaya hadba un gafaf yaryar iyo waxbaa la kala sheeganayay. qof toosnaa iyo kii qalloocsanaa ilaah baa ka warqaba. laakiin dhinaca siyaasadda waxaan igu muuqanaya waxaa weeye inuu ahaa nin odaya laakiin jeclaa weligiisna jeclaa inuu un madaxnimada ku muuqdo yaan ku arkay. dabeecad ahaan maxaad dabeecadihiisa ka sheegi kartaa oo ka xusan tahay maxamed ibraahim cigaal? dabeecadiisa horta nin bulshaya oo yuu badiba u badnaa. dad badan baa waxay ku sheegi jireen maxamed ibraahim cigaal inuu qabiilka iyo ka shaqeeyo oo qabiilista yahayo ama goosashada aqliima shimaal uu ka shaqayn jiray lixdameeyihii iyo maruu muxaarib wax badan ahaa. marka midaas aniga bilxaqiiqati kama bixin karayo xukun go-aan oo aan caddayn karo. tuhmadaas waa jirtay inay run tahay iyo in kale ma aqaano aniga bilxaqiiqati waqtiyaashaas siyaasada xaggeeda. wuxuuna weligiis un jeclaa inuu madax inuu ahaado iyo maxamed ibraahim cigaal ayuu jeclaa. laakiin sidiisa kale nin dadka fiican oo muxuu ahaa weliba sakiya oo xataa xoolaha dowladda iyo xoolihiisaba sakiya oo naxariis badan oo dadkii haddii wax loogu taga iyo gob ku ah ayuu bilxaqiiqata ayuu ahaa. dhinaca siyaasadda dowladnimada ma aqaan waxaan u malaynayaa haddii la rabo in qofkii uun si u fakaraya inuu duri karay waa suurtowda. laakiin haddana bilxaqiiqata dadkii maanta soomaaliya haysatay waqtigaa ama ilaa maanta ay haysato u malayn maayo inuu muxuu ahaa meel hoose inuu ka gelayo muxuu ahaa warqadda bogageeda hoose ma filayo. cigaal horta xilka madaxtinimada ra-iisul wasaarenimada Soomaaliya ma isagaad ku wareejisay ahayd? isagaa gala wareegay ra-iisul wasaaraha Soomaalinimada markii doorasho ay dhacday barisantinimo loo tartamayay oo هذا الحمد لله أول برسنتين هانتري برسنتنمدي وأفكار عبد الرشيد الله نحرسته مركز عبد الرشيد وحو مقحاوي أول لا يكون شيئا انتي لولا كسعودي ترتنكو أي كل شيئا إنه محوها هديو الساقة على بضوضة إسراحان isku meel ka soo jeestaan tartanka la tartamayay inuu barbar qadhiga hayo maxaa ra'iisul wasaare sidaas ku noqday ra'iisul wasaare marka xilkii markuu kala wareegay oo ninkii jagadaadii la wareegay uu noqday labadiina shakhsi ahaan xiriirkiinu sidee ahaa marka kadib wadayada bilowgii markii hore adigu xoogaa dhaxay khilaafa laakiin haddii runta la aado khilaafkaas waxaan u filayaa aniga
wuxuu ka socday meel kale maxamed ibraahim cigaal wejiga adigu lagu gabanaya oo u ekaayo marka maxaa yeelay isagaa jagadii joogay laakiin aniga u malayn maayo wax isaga toos uga imaanayay inuu ahaa wax khilaaf weyna ma ahayn adigu waxaa xoogaan isku qabqabanaynay madaxtinimadii xisbigana anaa madax ka ahaa marka xisbiga madaxtinimada wareejinteedii ayaa muxuu ahaa qoladii cusbayd adigu si xoogoo khasaba damcday inay iga qaadato meeshii aniguna waxaan ku dheganayo waxaan lahaa iyo raggii aan anigu isla jirnay qaynuun baa meesha yaalla doorasha shardi ay soo dhawaato xisbiga markii laisbalabedeliya ay timaado inta ka horraysa ninkii awal ahaa wax looga bedeli kara hadduusa isagu istaqaalo dhiibin oo isagu iska dhiibin muxuu ahaa ma jirto marka anigu bilxaqiiqati waxaan jeclaa markii xukunka laygala wareegay inaan aniga midatana wareejiyo niyadayda oo idaaradii markii aan isla madaxda u ahaa ku heshiiska laakiin markay iyagu damceen inaan xoog ay ku qaataan ayaan anigu muxuu ahaa ku adkaystay qaynuunka xaggiisa ila qaynuunka xaggaygu jira xisbiga sharcigiisa marka midaasaan xoogaa isku qabqabanay ilaa iyo xataa ay yidhaaheen cabdirasaaq 2 milyan oo lacag u xaday oo dawladda ka xaday meeshii si maaragtay ay dadweynaha oo anigaan u malaynaya inay ogaayeen in laygu tuhmaayay inaanu xoogaa dawladda fan ka shaqaynayay ay midhaa wejigayga xoogaa u eebeeyaan bay suuqa aad loo geliyey adigu marka midaasaan xoogaa ayaamo intii khilaaf keentay markaan ku dheeraada maba rabin midaas laakiin waa loo baahan yahaan u malaynaya xoogaa yaroo tafsiira waan gartay marka cigaal la fiiriyo waxaa tiri madaxtinimadu jeclaa arrin kolley la hubo waxa weeye cigaal inuu muddo dheer madax ahaa ama soomaaliya oo dhan ha u ahaado ama somaliland markii hore ha u ahaado ama markii dambe hadda uu ahaa markaad fiiriso dabeecadihiisa iyo aqoontiisa iyo shakhsiyadiisa maxaa ugu muhiimsanaa ood isleedahay way u suuragelisay inuu bulshada intaas ku hogaamiyo maxaa u suurageliyey awoodaha shakhsiyan aniga waxaan u malaynayaa horta oo ogtahay ninkan allah u naxariistay wuxuu lahaa bilxaqiiqati haybad looga soo haybaystuu lahaa codkornimou lahaa muxuu ahaa haddii magac baana u baxay oo de markiiba xorriyadii iyo markii hore reerkii uu ka dhashay aabihiis iyo xoola lahaayo markii hore oo awalba muxuu laisku imaanayay waxaasoo dhan waa haddii laisku jumleeyo waxay bixinayaan masawir bay bixinayaan oo joogta noqon karaya marka isaguna bilxaqiiqati haddii loo fiirsho dadkii markii la tartamayay ama muuqanayay wuxuu nin hadiibadiiba maaragtay la dabooli karayo uma weekayn marka anigu waxaan u malaynayaa inay intaas oo laisku dayo isaga oo muxuu ahaa mar walbaba jeclaa inuu madax ahaado madaxnimada aad iyo aad u jeclaa hadduu waxaystana ku urahaya oo ku bixinaya inuu madaxnimadaas inuu helo ama hadduu haysto ku adkaysto anigu intaasaan u malaynaya inay isku darkeedii inay kordhisay mid kalena adigu waa jirtay oo wax badan oo hadda xabis soo maray ninka kan oo dawladdii waqtigii maxamed siyaad barre aad iyo aad buu muddo dheer buu oo 2 goorab oo mid walbaba muddo xiga buu xirnaa ayadaas ruuxeedu muxuu ahaa waa ay kordhinaysay dadka uu madaxda hadda ka dhigtay qusan weliba muxuu waa kordhinaysay inay raxmad inay u keento maxaa jira wuxuu u xirnaa waxaa weeye dadnimo lagu tuhmaayo iyay ahayd oo weliba qabiil ahaan ay u dhowdahay in loogu tuhmayo saasna waa keeni karaysay baan malaynaya ugu dambayntii dadkaan aqoonin cigaal haddaad u fasirayso maxaad kusoo xusuusan lahayd adigu haddaan maxaan ku xusuusan lahaa wallahi cigaal waxaan ku xusuusan lahaa inuu wax kasta oo la iimayn karo qof madax aan iima loo yeeli karinna ma jiro ama aan lahaynba xaqiiqadii aan lahayn madax noqday meel kastaba adduunka iyo soomaalida iska badbaaba marka cigaal anigu waxaan dadka ku xusuusan lahaa waxaa weeye nin oday oo soo kifaaxay oo soo shaqeeyey oo intii un tabarta dadka soomaalida aqoontooda iyo xiriirkooda iyo soo shaqeeyey ayuu ahaa u malayn maayo maanta hadda hadduu u dhintay inuu sidaan anigu cigaal ku aqaynay allah u naxariiste in la helayo malaayiin iyo malaayiin lacag oo meel u taalla waana suurtooda malaayiin oo malaayiina inuu la qabtay oo suurtooda laakiin haddana waxaan leeyahay dadka unbuu ku celiyay dhexdooda kala maslaxooda iyo haba u badato inuu isagu xukunka inuu haysto haba ku jirte dadka unbuu ku celiyay hadda lacagu isagu meel dhigtay ma filayo inay jirto marka adigu ninkaas adigu wanaagiisa iyo qiimihiisa yaryarba uu iska lahaa laakiin
dhinaca wanaag aba miisaan ku dhaxaya barsle cabdirasaaq xaaji xuseen ayuu kaasi ahaa. siyaasiyiinta kale ee cigaal ay soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa cabdulaahi maajoor oo jooga magaalada toronto ee dalka canada. cabdisalaan hereri ayuu uga waramay cigaal. marka hore waxaan leeyahay waydaa sababu musiibatu qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. naxariista allah siyaasaya reerkiisana sabar iimaan allah ka siiyo, shacabka soomaaliyana sabar allah siiyo. waxaan isu barinay maxamed ibraahim cigaal 60kii markii isku darkii Soomaaliland iyo Soomaalida koonfur ayaan isu barinay. xageebaa ku kulanteen markaa muqdisho baan isku ayigi muqdisho yimid, xamar ayigi noogu yimid. waa tay baarlamaankana ku wada jirnay. kolkii isku darkii uu dhacay oo dhamaaday ayaa laba xisbi SL iyo SSC ayaan isku darnay. dadkii xamar joogay iyo dadkii reer waqooyiga oo Soomaaliland galka ayaan ka soo furnay oo Soomaaliland baan ka soo furnay asayana soo ila qudhiisa. nin sideeyaba uu kula ahaa adiga maxaa tilmaanayaad ka bixin lahayd? maxamed ibraahim maxamed ibraahim nin weyn buu ahaa, Allah yarxamo. nin weyn oo qoon leh caqli badan ayuu ahaa maxamed ibraahim oo dad hogaamin kara. marka idinka siyaasadii waagaa jirtay ma isku aragtiba ka ahaydeen? waa adiga sheegayayna isku xisbi ahaydeen? isku xisbi aan ahayn markii oo alaaqaadka dowladda Britain laga goosanayay. markaana isku mid baan ahayn, isku dhammaan way soconay. 16 anagoo ah ayaan diiday in laga gooso alaaqaadka Ingiriiska oo soo ku jira anaga iyo rag badan ku 16 baan ahayn. sababtii cilaaqaadka looga goosanayay markaa maxay ahayd? waxay ahayd referendumka ka dhacay NFD ayaa referendum ka dhacay. cabdirashiid baa barnaamij minister ahay. referendumka Soomaalida heshay NFD inay Soomaalida raacdo. Ingiriiska waa khilaafay, wuxuu yiri lix district waay saddex district qaata saddex kaalmad madagiriin buu yiri. saddex geel daaqo qaati waa Mandheera iyo Wajeer iyo Gaarisa ayay ahayd. marka sababta idinku u doonayseen in cilaaqaadka Ingiriisku sii jira maxay ahayd? waxay saddex arrimood buu Ingiriisku markaa loo hayay. Ingiriisku wuxuu sii jeeday Soomaaliya sii jeeday 3 milyan oo gini oo macaawinaad sanadkii. mar kale Ingiriisku relay station relay ayaa berbera ka sameysana oo dad badan ka shaqeeyaan. waxaan diidaynay inta la fujiyo 150 ardayda bil walba ma qaadi jiray. war waxaad yeelaysaa cabdirashiid baramisaro haddii aan calaaqaadka loo goosto saddex arrimood ayaanu waayeynaa. saddex district waanu waayeynaa. 30 milyan waa la waayayaa. relay berbera wuu fuuqsanayaa. adeer noo daa iska daa. waa warlaliyihii ku yaalay berbera miya? berbera ku yaalay 60 lagu sameeyay. cabdirashiid wuu diiday ma yiri calaaqaadka sababta uu geeyay. cabdirashiid saasayd 60 district la siiyay 60 oo ballan qaadana siiyo. sidee baad u arkaysay siyaasadiisa guud ahaanba xitaa markii dambe ra'iisul wasaaraha uu noqday? wadani waa maxay raacay wadani buu ahay oo waxa ku jira isku darkii kolkii la raacay oo xamar la wada yimid darajooyinkii waa weynaayay oo xaq uu lahaa barnaamijka la siiyo. حتى هدي السيوة ويسكدها فروك هذا كما دقين Soomaaliland kuma degin waqooyiga barnaamijka kuma degin xaq bay u lahaayeen laba majalo waaweyn oo militariga iyo biliiska labadii waxba lagama siin. kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Maajoro ka warramayay taariikh nololeedka Maxamed Ibraahim Cigaal oo maanta ku geeriyooday dalka Koonfurta Afrika oo bisha May ay tahay 3 sanadka 2002. barnaamijkeeni caawana idinku tala galnay geerida Cigaalna intaas ayuu ku dheeyay. intaan ku kulmi doono berito nabadgeliyo.